magaalada muqdisho airportkan cusub ay yeelanayso ilaahay idinkiis airport caalami ah oo international transit facility leh oo international cargo facility leh oo aad iyo aad uga jawaabayo mowqaca Soomaaliya ay ku taalo sida oo qaaradda Afrika iyo regionka aan ku naalna oo uga qayb qaadan karo Soomaaliya way ismeelaynaysaa waxayna isu meelaynay qarniga 21aad ee aan ku jirno bilowgiisii oo la yiraahdo waa qarniga Afrika la yiraahdo Soomaaliyana qarnigaasi in ay doorkeeda ka ciyaarto oo doorkeeda ay ka qaadato ay isu meelaynay si ay doorkeeda uga qaadatana waa inay heshaa infrastructure international standard airportka qorshihiisu wuxuu soo bilowday sanadkii 2019 waxa uu soo maray dhowr heer oo kala duwan oo ay tahay stadigi airport meeshaas noqon karo iyo baaritaano dhowr nooc ah iyadoo ugu dambeyntii la soo gabagabeeyay baaritaanka ciidda ee geotechnicalka dhaqaalaha lagu dhisay airportkan wuxuu noqon doonaa dhaqaale ay u sameeyeen Soomaalida oo ay share ku noqdaan maxaa la yiraahdaa horumarinta dalkan ay uga qayb qaataan mashruucan waa mashruuc private public partnership oo qof walba Soomaaliyeed u furan inuu saami ku yeesho halkii saami qiimihiisu waa $32 ugu yaraan qofku wuxuu kula shirkoobi karaa shirkadda New Muqdisho hal share ugu badnaan 315 saami hadda waxaa furan wareegga koowaad isdiiwaangelinta oo xirmaya 15 November shaqada meel fiican ay noo socotaa alxamdulillah waxaan hadda ku guda jirnaa halkan waxaa ka bilaabmaya runway-gi airportka ka bilaabmaya almost waxaan hadda gaarnay oo dhamaystirnay 1 kilometer ما شاء الله waxaan dhamaystirnay 48% ilaa 50% shaqadii runway-ga airportka waa noo dhamaatay waxa sidoo kale socda 80% guul ka gaarno dhamaystirnay geotechnical investigation-kii ciidda hadda hawsha inoo socotaa waxa weeye waa cut and fill-kii waxaan ku wajinaa qaybtii runway-gii diyaaradda waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda insha Allah inaan gaarno aan dhamaystirno runway-ga that 4 kilometer long waaye runway 4 kilometer dheer waaye kaas oo ka dhigaysa garoonka cusub ee Muqdisho International Airport garoon caalami ah oo la jaan qaadaya garoomada caalamka iyo wadamada dariska